madaxweyne xasan sheekh ayaa xalay qaabilay madaxda galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle saddexda hogaamiye ee qoorqoor lafta gareen iyo cali gullaawo ayaa dhammaan qabay tabashooyin la xiriira habdhaqan ka dhaawacan ee ka dhex urtay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ee madaxweyne xasan sheekh waxaa si gaar u gadoodsanaa lafta gareen iyo qoorqoor oo ay labadaba daandaansi ula bareereen cabdiraxmaan odowa iyo xuseen sheekh oo xogeeye guud iyo ku-xigeenka ah xisbiga cadaaladda iyo wadajirka odowa iyo dr xuseen sheekh ayaa lagu eedeynayaa inay rabaan inay madaxweyne xasan sheekh ka lumiyaan xiriirka qoorqoor iyo lafta gareen si ay arrintaasi ugu dhasho faa'iido shakhsi ah oo la xiriirta doorashooyinka soo socda madaxweyne xasan sheekh ayaa xarigga dhexda ka qabtay isagoo kulan degdega ugu yeeray madaxda maamuladan kulankii xalay ka dhacay filla soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa ka garaabay fowdada ay xubno xisbigiisa ka tirsanay ku kaceen ee halista gelisay xiriirka filla soomaaliya iyo maamulada galmudug iyo koonfur galbeed madaxweynuhu wuxuu dusha saartay dhammaan qaladaadkii dhacay wuuna noo cudur daartay wuxuuna ahaa mid ka xun sida loogu tuntay awooddii iyo shuruucdii xisbiga ayaa mid ka mida madaxda maamuladani u sheegay raaligelinta iyo dejinta heerkulka madaxdan marka laga tago madaxweyne xasan sheekh wuxuu kaloo ballan qaaday inuu dhacdooyinkan soo noqnoqday ee xisbigiisa dhexdiisa ka jira inuu xal dhab ah u keeni doono shir kale ayaa lagu ballamay oo ay sidoo kale ka soo qaybgeli doonaan ra'iisul wasaare xamse guddoomiye sheekh aadan madoobe iyo madax kale oo ka tirsan dowladda federaalka ama xisbiga cadaaladda iyo wadajirka kaas oo dhici doona markii uu madaxweynuhu ka soo laabto safar uu ku tegaayo waddanka qatar madaxweyne xasan hadda uma fududa inuu aqbalo furin cusub oo siyaasadeed isagoo wajahaya colaadda puntland jubbaland madasha samata bixinta iyo mucaarad kale xubnaha ka midka ah xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ee go'aansaday inay madaxweyne xasan sheekh dagaalka cusub geliyaan si ay dana shakhsiya u xaqiijiyaan waxaa hadda hor taalla inay siyaasadda madaxweynaha raacaan ama inay xisbiga isaga tagaan oo ay bannaanka u soo istaagaan dagaalka qoorqoor iyo lafta gareen maadaama uusan xasan sheekh wakhtigan diyaar u ahayn inuu lumiyo madaxda maamuladan maxay kula tahay